السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waani waa macallin Shariif maanta waa maalin Isniina oo taariikhdu ay tahay 15 Agoosto 2022 maalinta Khamiista ah ee nagu soo fool leh oo taariikhdu ay tahay 18 Agoosto 2022 waa maalintii la soo dhijinayay natiijooyinkii imtixaanaadka A-levelka anugaaga haddii uu dhigto A-level wuxuu u gudbayaa jaamacadda waxay siisay boos ku salaysan shuruudaas waxay noqon kartaa inuu keensado grade A ama A star ama B inuu keensado maadada uu doonayo inuu ku barto jaamacadda haddaba haddii canugaaga uu la imaan waayo natiijadii laga rabay booskaas waa laga ceshanayaa oo la siin maayo canugaaga markaas waxaa u furnaanaya inuu fiiriyo boosaskii kaleete ee uu dalbaday oo uu ka dalbaday jaamacadaha kale haddii boosaskaas shuruudahooda uu buuxiyo kuwaas ayuu qaadanayaa haddii laakiin saddexda jaamacadood oo uu dalbaday shuruudahooda uu soo buuxin waayo canugaaga wuxuu sugayaa markii la gaaro xilliga clearance-ga waxa waaye jaamacadaha markii ay qaataan dadkii ay u baahnaayeen oo dhammaan soo buuxiyay shuruudihii laga rabay haddii ay soo horaan boosas aan la buuxin markaas waxay soo gelinayaan system la yidhahdo clearance-ga oo markaas waa la wacayaa jaamacadda haddii jaamacadda boos uu ka bannaan yahay maadadii uu doonayay markaas jaamacadda waxaa laga yaabaa inay qaadato marka cunugaaga A-levelka waa fursadda u bannaan haddii shuruudda uu soo buuxin waayo waa intaas oo qura haddii kaleeto waa inuu sugo 1 sano oo kale uu waxbarashadiisa ay ku imaato 1 sano oo dib u dhac ah canugaaga haddii uu keensan waayo gareedkii laga rabay oo uu soo buuxin waayo shuruuddii ay jaamacaddu ka rabtay taasi canugaaga waxay ku keenaysaa niyad jab sidaa darteed adiga ha ugu darsamin oo ha caynin hana ku oran oraah sii niyad-jabinaysa canugaaga mar haddii gareedkiisii uu soo qaatay natiijadii uu og yahay waxa uu helay wax kastoo aad sheegto haddeertaan waxba ka bedeli mayso sidaa darteed oraahda aad ku leedahay canugaaga ha noqdaan oraah dhiirigelinaysa canugaaga si uu uga soo kabsado niyad-jabka maalintaas ku imaatay haddaba waa muhiim canugaaga inaad dhiirigeliso oo aad ogaato natiijo kasta oo imaata in canugaaga aysan waxba ka bedelaynin shakhsiyaddiisa sidoo kaleeto isbuuca soo socda maalinta Khamiista oo bishu ay tahay 25 Agoosto 2022 waxaa la soo dhijinayaa imtixaanaadkii GCSE natiijadii canugaaga uu ka keensaday GCSE-ga ayaa la soo dhijinayaa canugaaga iskoolka ayuu tagayaa wuxuuna soo qaadanayaa gareedka uu ka keensaday maado kasta oo uu sameeyey GCSE haddaba marka uu soo qaato wuxuu aadayaa iskoolka 6 formka uu ka dalbaday iskoolkaas GCSE-giisa ay fiirinayaan haddii uu soo buuxiyo shuruuddii waa loo ogolaanayaa inuu sameeyo maadooyinka uu ka dalbaday GCSE haddii laakiin shuruudda uu soo buuxin kari waayo waxaa lagu leeyahay shuruuddii ma aadan soo buuxin sidaa daraaddeed maadooyinkan ma aad dalbatay ma samayn kartid waxaad samayn kartaa maadooyinkan kaleeto haddii uu rabo maadooyinkaas inuu sameeyo wuu samayn karaa laakiin haddii uu rabo inuu sameeyo maadooyinkii uu horay u dalbaday laakiin shuruudihii uusan soo buuxin canugaaga waxaa u furan kow inuu iskool kala aado iskoolaadka waa ay ku kala gedisan yihiin gareedka looga baahan yahay canuga shuruudda looga baahan yahay canuga inuu soo buuxiyo waa ay ku kala gedisan yihiin iskoolaadka qaarkood maths haddaa samaynayay sidoo kaleeto grade 7 lagaaga baahan yahay iskoolaad kaleetana waxaa laga yaabaa in loo baahan yahay grade 6 sidaa daraaddeed iskoolkaas wuu ka tegayaa iskool kale uu tegayaa waxaa laga yaabaa iskoolkaas kale in gareedka looga baahan yahay uu ka hooseeyo gareedkii looga baahnaa iskoolkii uu horay u dalbaday taas waa midda labaad canugaaga haddii gareedkii laga rabay uu keeni waayo ha ka fikiro maadooyin kaleeto oo uu samayn karo si fiican uga naqaasha si fiican uga wada hadla maadooyin kaleeto uu samayn karo haddaba khaladka ugu weyn ay sameeyaan ardayda dalbanaysa A-levelka
ardayda doonaysa inay samayso A levelka marka ay dalbanayaan maadooyinka A levelka khalad weyn ayay sameeyaan ilaa iyo ardayda 53 boqolkiiba in ka badan ayaa samaysa khaladkaas. haddaba khaladkaas waa maxay? khaladkaas waa canugaaga inuu dalbado maadooyin A level ah oo hodhowti uusan u baahnayn. haddii uu sameeyo 4 maado oo A level ah laakiin jaamacadda looga baahan yahay maadooyinkaas uu doonayo inuu ka sameeyo jaamacadda looga baahan yahay A level kale aan ka ahayn kan uu dalbaday. hadhowta canugaaga A levelka 2 sano markuu dhameeyo jaamacaddii uu tago waxaa lagu leeyahay A levelkan looma baahnayn, marka waxaa loo baahnaa A level kaleeto. si aysan taas ugu dhicin canugaaga waxaa u baahan tahay kow canugaaga inuu ka fikiro waxa uu doonayo jaamacadda inuu ka sameeyo. hadduusan taas ka fikiri karin ha ka fikiro canugaaga waxa uu doonayo inuu noqdo. marka uu garanayo waxa uu doonayo inuu noqdo wuxuu ka fikirayaa digriiga loo baahan yahay ama qualificationka loo baahan yahay shaqadaas inuu qabto. marka uu garanayo digriiga loo baahan yahay ama qualificationka loo baahan yahay markaasuu qualificationka jaamacadda ka fiirinayaa. jaamacadda marka uu ka fiiriyo wuxuu fiirinayaa A levelka ay u baahan yihiin, markaas ayuu A levelka dalbanayaa. haddaba waa iska common in ardayda ay A level khaldan ay dalbadaan amaba A levelka gradekii looga baahnaa ay keensan waayaan. sidaa daraaddeed waxaa muhiima inaad ka wada hadashaan canugaaga wax kasta uu doonayo inuu noqdo mustaqbalka amaba meelaha uu doonayo inuu ka shaqeeyo. mar haddii taas uu garanayo markaas wuu fahmayaa digriiga looga baahan yahay. mar haddii uu garanayo digriiga looga baahan yahay requirement-uu fiirinayaa, requirement-iga A levelka uu fiirinayaa, markaasuu A levelka soo sameynayaa amaba uu dalbanaya A levelka. haddaba qaabkaas waa qaabka loo dalbado A levelka. haddii canugaaga uu iska dalbado A level waxaa kasoo gaari kara dhib ah in A levelkaas aan loo baahnaynba, jaamacadda aan looga baahnayn oo A level kale looga baahan yahay. markaas canugaaga waxaa laga yaabaa inuu ku yiraahdo 2 sano ayaan haddana dib u noqonayaa oo aan soo sameynayaa A level. saasaa laga yaabaa inuu ku yiraahdo. haddaba si aad taas uga baaqsato canugaaga hadda ha ka fikiro waxa uu doonayo inuu noqdo. mar hadduu garanayo waxa uu doonayo inuu noqdo digriiga loo baahan yahay fiirinaysaan. digriiga loo baahan yahay marka aad fiirisaan requirement-iga fiirinaysaan ama digriigaas A levelka ay qaadanayaan. A levelka markaas cunugaas uu dalbanaya. haddaba maxaa dhacaya marka canugaaga haddii uu keensan waayo GCSE-gii laga rabay? haddaba GCSE-gii laga rabay hadduu keensan waayo canugaaga waxaa laga yaabaa A levelkii uu doonayo inuu sameyn kari waayo amaba la dhaho ma sameyn kartid. haddaba waalid waa muhiim inaadan ku qaylin canugaaga amada aada canaanin amaba aad mataqaanaa hadallo xun oo aan waxba soo kordhinin ku tiraahid. waqtigan waxa waaye waqti cunug kasta uu faraxsan yahay, waqti cunug kasta uu ka fikirayo inuu u gudbo heerkiisa 2 ama heerkiisa 3 ee mataqaanaa waxbarashadiisa. sidaa darteed waqti waxa waaye ay u baahan yihiin inaa la dhiirigeliyo. xitaa haddii mataqaanaa A levelkii GCSE looga baahnaa ama A levelka looga baahnaa uu keensan waayo dhiirigeli, tusina in weli mustaqbalkiisa uusan baabi'in oo weli fursad u haysto. markaas canugaaga insha Allah tacaala waxaa laga yaabaa inuu kasoo kabsado guuldarrada ku imaatay xagga waxbarashadiisa. ogow guuldarrada waa qayb weyn oo ka mid ah waxbarashada. ugu dambeyn iskoolaadka fasax ayay ku jiraan. marka maalinta natiijooyinka la dalbanayo ee caruurta kasoo qaadanayaan iskoolaadka waxay furayaan 1 saac ama 2 saac. 1 saac ama 2 saac waxaa loogu talagalay ardayda inay ku yimaadaan iskoolka oo ay kusoo qaataan natiijadooda. canugaaga haddii uu ku imaan waayo 1 saac ama 2 saac waxaa macquul ah in iskoolka laga xirto hadhowtina 6 formka meeshii uu ka haystay uu ka waayo, booskii 6 formka uu saas ku waayo. waa macquul. waxaa kaloo macquul ah in canugaaga ay noqoto inuu sugo ilaa iyo 1 September markii iskoolaadka dib loo furo. waqtigaasna waxaa macquul ah 6 form kasta inuu qaatay intii arday oo u baahnaa. marka canugaaga waa muhiim inuu waqtiga ilaaliyo. adigana waa muhiim inaad dhiirigeliso maadaama waqtigaas ay noqon karto cunugaaga u noqon karto waqti niyad jab ah amaba ay u noqon karto waqti farxad leh.
mid kastoo noqotaba adiga markasta waa inaad ku dhiirigelisaa oo aad tusisaa in albaab kasta uusan kasoo xirmin oo albaabadu ay badan yihiin albaabo kalena ay u furmayaan biidni illaahi tacaala. la wadaag walaalaha kale waa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.